مدن قدومي مدن يالي مروين سؤالي حلقة قدام بيه على الشوغا مركب اسكسو كوكوبيا حلوان سعيد محمد علي سؤال شي سياحة هيد شرعكم ما يلان دونا شرع سوماليات ونغنيا مثل شرعي أو هيدها عالمي وافقسن سيدا وشغيان شرعي سوماليات وهيد وهيد سوماليات لكن دمعا مرك شرعي الديارين هيد سيدا وشغيسو wuxuu waxyaabo badan kala mid noqonayaa hay'adaha la midka ah oo aan xubinta ka noqon doono oo aan maanta meeshan ka sheegay oo Afrika ka jira oo adduunka ka jira inay iswaafaqaan ismana diidayaan hadduu alla idmo wuxuu ka hadlay deyn cafinta deyn baa wadanka lagu leeyahay dabcan aniga waxay la tahay hadda maanta halkaan deynta uga maynaan doodayn laakiin haddii aan soo koobo waa laga wada adeegsan yahay wadanku wuxuu ku jiraa barnaamijka geedi socodka deyn cafinta oo meel gabagaba maraya oo meel fiican maraya oo golahaani in halka la gaaro oo waqti dheer ka qaatay wali hore baarlamaankii 10aad iyo baarlamaankii 9aad iyo baarlamaankan hadda jiraba runtii ay ku amaanan yihiin doorka aan ku leenahay oo in deynta la inaga cafiyo ay dawladeena wax weyn ay u tahay xildhibaankii kale guddiga sidee loo sameeyaa zoom baa lagu soo galayaa buu yiri halka waxaan rabaa inaan clarify gareeyo guddigan waxa weeye waa guddiga noqon doona guddiga boardka ah oo hay'adda maamula 4 xubnood sida la sheegay waxay ka kala imaan doonaan wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska hantidhawrka guud iyo bangiga dhexe iyo wasaaradda waxbarashada 7 xubnood oo soo hartay mudane guddoomiye waa xisaabiyaasha laftooda ka soo dhex dooranaya hay'adda xisaabiyaasha weeye xisaabiyaashaasana codayn doona sidee xisaabiyaasha laftooduna waxay noqon doonaan kuwa xeerkii ku qoran yihiin shuruucdii laga rabay iyo qualificationka iyo experience-ga iyo competency-ga laga rabay kuwii buuxiya oo ayagu CBA yani shahaadooyinkii laga rabay haysta kuwaasa marka iska dhex codayn doona qofkii marka shuruudii buuxiya oo hay'addu register garayso oo xaq u leh Soomaali inuu codeeyo oo aan wadanka markaas aan Muqdisho joogin ee gobolada jooga ama meel kale jooga wuxuu xaq u yeelanayaa inuu Zoom ka soo galo oo codbixinta ku dhiibto weeye marka nidaam baa dabcan waxa jiri doona wixii la oran jiray waxa jiri doona habraacyo oo la develop gareeyo oo wasaaraddu hay'addu sameyn doonto oo waxaas oo dhan iyo doorashada iyo nidaamka u dhacaysa iyo lagu xadidi doono ayadana halkaas aan uga gudbayaa mana aha wax qabiil iyo qof loo fiirin doona midaan waxa hagi doona qofka qualificationkiisa iyo khibradiisa shaqo xildhibaan qambi aad buu mahadsan yahay habraaca oo xildhibaano badan soo celiyeen annaan hore uga jawaabay waxaan rabaa markii u dambeysay aan gudoomiye si fiican uga jawaabo miisaaniyadda dawladda halkaan lagu ansixiyaa hay'ad dawladeed oo aan sharciyad lahayn oo establishment act lahayn oo establishment actgeedu san baarlamaanka marina miisaaniyad looma gelin karo miisaaniyadda lacag looma gelin karo budget looma gelin karo markii horena waa sheegay haddana waa cadeynaya waxa weeye hadduu alla idmo hay'adan waxay miisaaniyaddeedu soo geli doontaa sanadka soo socda that's it intee baa ku baxaysa iyo waxyaabaha xisaabaadka iyo waxaasna way noo sahlan tahay guddiga noo soo gudbin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo taas halkaa in looga qancaan rajaynayaa arrinta xisaab xirka sharciga maaraynta maaliyadda sida uu qabo iyo dastuurka iyo xiroosaadka intuba 30 bisha March waxa loo gudbiyaa waa hanti dhowrka loo gudbiyaa 30 bisha March ma ahan deadline-ka loo soo gudbinayo baarlamaanka mar horena waan sheegay maanta xisaab xirkii ka doodi mayno xisaab xirada wasaaradda maaliyadda ku maqan hadduu alla yiraahdo waqtigoodii ayaa lagu soo gudbinayaa guddiga iyo qusaysaa loo soo gudbinayaa ayagaana baarlamaanka hor keeni doona markooda ayaana laga doodi doonaa su-aashii u dambeysay weydiinayay ninka la yiraahdo xildhibaankii u dambeeyey Jaylaani حقان قرتنيو صح ماشي قلت هايد waxa weeye ma hay'ad waxay noqonaysaa hay'ad federaal ah oo hay'ad qaran ah oo national ah sida hay'adii kale hore loo asaasay xubnaheedana lagu ma qaybin doono maamul goboleed iyo qabiil midna waxa lagu qaybin doonaa sidaas la sheegay dadkaas sheegayna already markii hore wada maamul goboleedada iyo nidaamka waafaqsanaayeen laakiin xubnuhu sharci waxay ku imaan doonaan qualification ama ka yimaado Hargeysa ama Garowe ka yimaado ama Baydhabo Jannaa ka yimaado ama magaalo kale Soomaaliya ka yimaado qofkii xisaabiye ah oo shuruucda buuxiya
oo qualificationkaas leh baa xaq u leh in la sisgareeyo ayagaana is dooran doona hadduu alla idmo waxayna xafiisyo ku yeelan doontaa hay'addu maamul goboleedyada dhammaantood si adeega loo gaarsiiyo meel kastana ay xisaabiyaashu uga helaan certificationkii iyo waxay u baahan yihiin gudoomiyahaasaan kusoo koobaya waxaan u mahad celinayaa baarlamaanka waxaan kula biirayaa xubnihii halkan ka hadlay dhacdadii xalay toole inaan ka tacsiyeeyo oo aniga weliba dad aan qaraabanahay uu ku dhintay dadka Soomaaliyeed oo dhan waa uga tacsiyeenayaa waana maartay dhibaataynta dawladda Soomaaliya dadka shacabka lagu hayo ilaahay idinka waxaan rajaynayaa inaan hore uga gudubno waxaan codsanayaa sharciga in sidii la sheegay sharciyadu waa waxa laynaga dhaxli doono oo wiilasheena iyo wiilasha ka dambeeya generation ka dambeeya maamuli doona محافظي معارض مال إنه إن objective أو شرعيات أو aqooneed oo inaan ku eegno wixii ku khaldan oo aan wadanka qabanna laga saaro wixii toosin uga baahan la toosiyo wixii soo in loo daayo u baahan soo loo daayo sharcigan oo kale waliba waa technical maba meel uu siyaasad ka soo galo iyo meel wax qaybin ka soo gala ma jirto waa technical geedi socodka dawladnimada oo aan dhisayno iyo shuruucda iyo siyaasadaha horumarinayana ayay ka mid tahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh